waxaan rabaa inaan shucuurteyda la wadaago qof kasta oo kamida bahda Tabaarak in safarkii laga soo sheekeeyay qof kastoo naga mida uu ka soo raaca baska meel in uu maanta taagan yahay bostiijadan quruxda badan iyo dhalinyaradan u badan Gen-Z-ga tareenkaas dabcan ama baskaas meesha uu u socdo injineerkii hadaatan weydiiyay 2050 iyo wixii ka dambeeyay waaye shirkadaha marka aad fiiriso historyga Soomaalida shirkadaha ugu badan waqti badan jira 70meeyadii dadkii ku ilaa asaasa ugu weyn marka waqti badan oo sidaas u da'weyn marka adduunyada loo fiiriyo ma hayno waxaan rajaynaynaa Tabaarak inay noqoto mid kamid ah shirkadaha Soomaalida boqolaalka sano jira haduu Ilaahay yiraahdo si loo gaaro aragtidaas qof kastoo naga mida maalin ayuu ku soo biira Tabaarak asagoo mid shakhsi ah dana shakhsi ah oo vision shakhsi ah leh ka maamul ahaana waxaan rabnaa inaan isla korino visionka shakhsiga ah ama personal growth-ka qofka iyo midda shirkadda waxaan rabnaa inaan abuurno culture soo bilowday qof kasta u soo bilowday marka uu Tabaarak ku soo biiro wuxuu wata dabeecad wuxuu wata aqoon wuxuu wata kartidiisii oo loo sameeyay platform ayaan rabnaa inay ku korto shirkadda haddii uu qofku uu koro maskaxiyan aqliyan aqoon ahaan waxaan hubnaa oo aan aragnay sidoo kalena tijaabinay in shirkaddu ay korayso institution kastana ay sidaas tahay mar kale waxaan shaqaalaha shirkadda uga mahadcelinayaa sanadkii 2025 shaqadii quruxda badneed oo qof kastoo naga mida oo qaybta libaaxa leh ka qaatay ayadoo aan la kala reebeynin qof kasta muhiim u ahaa shirkadda maalin hore waxaan akhrinayay Mark Zuckerberg oo dhahaya AI hala ii sameeyo 76,000 oo shaqaale ah ma wada hor istaagi karo meel ay igala hadlaan marka meelaha aan ka maseeray kamid tahay Tabaarak oo dabcan 76,000 oo shaqaale ka badan ka shaqeeyda ma arki karnaa although aan abuurnay in ka badan 60 kaas kun ka badan oo fursadaha oo abuurnay hadaad fiiriso adduunka maanta waxa laga hadlayo waxa waaye maxaa nolosha dadka ku soo kordhisay haday noqoto shaqo abuur haday noqoto fursado iyo haday noqoto impact Tabaarak dabcan impactiga ugu weyn oo hadaan ka bilaabo dadkeena waxay fursad siisay dad aniga aan kamid ahay intiinana kamid tihiin inay maanta institution wax ku contribute gareey karaan ay ka shaqeeyaan arintaas dabcan meesha aan hadda joogno waxa laga yaabaa inay tahay meeshii ugu yareed ee ahayd inaan joogno sanad kasta tiknoolajiyada ardayda barata waxaa ka soo baxda qiyaastii 10 ilaa 20 kun oo arday ah graduate gareysa dadkaasu shirkadaha ay filayaan inay ka shaqo bilaabaan waa Tabaarak oo kale Tabaarakna dabcan qof kastoo naga mid ah sida uu ku yimid waan ognahay haddii marka fursadahaas iyo fursado kale ka waaweyn inaan abuurno aan rabno waxaan u baahannahay inaan fahamno horta tiknoolajiyada oo aan ka shaqeynayno halkee u socoto iyo halkee ka timid qof kastoo naga mid ah maalin ayuu bartay IT-da iyo wax ku saabsan ama jaamacad ha u galo ama course caadi ha qaato maanta meesha ay marayso qof kastoo naga mid ah horta waa inuu cala cilmin u og yahay iyo meesha ay u socoto siday isku bedelayso yaa competitor ku ah yaa suuqa ka saari kara dooda ugu weyn ee maanta taagan waxa waaye shaqooyinka qaar ee aan hayno ee macaamiisha aan u hayno how long ayaan sii hayn doonaa
meeqa sano ayaan u baahannahay inaan systems develop gareeno baahida dadka wax ka bedelaan arrintaas dabcan waxay u baahan tahay daraaso corporate level ah iyo waxay u baahan tahay mid oo shakhsi ah shaqada ah hadda hayso meeqa sano kadib ayaa loo sii baahan karaa badiilkeediina ma diyaarisay waxaa soo baxday ee ayadu waxay qaadan doontaa shaqada laakiin waxaa xaqiiqo ah in shaqooyinka qaar aysan qaadan doonin waxaa ka mid ah shaqooyinka aan naqaano oo ah sida mushkilaadka loo xaliyo problem solving ee ayadu ma qaadan doonto critical thinking sidee loo fekeraa afkaar loo curiyaa ee ayadu ma qaadan doonto laakiin qof yaqaana ee ayada ayaa shaqadaada qaadan doona that is waxa oo ugu weyn oo u baahan inaan dhammaanteen ka wada fikirno aragtida shirkadda 2 sano soo socota iyo kadib 5 sano soo socota waxa waaye intaan iyo in kaloo badan oo hadda kamida dadka ardayda ay wax barata in mashaariicdii ay ka shaqeyn lahaayeen iyo suuqyadii ay projectiskoodu ka shaqeyn lahaay inaan u raadino oo aan u sahmino haddii noqon lahayd continentiga aan ku noolnahay iyo haddii ay noqon lahayd meelo ka sarreeya oo wadamo kale ah haddii aan u soo gudbo sababta loo qabtay kulankan muxuu yahay kulankan waxaa loo qabtay dabcan markii guri la dhisaayo marka koowaad waxaa laga bilaabaa asaaska kadib waxaa lagu xijiyaa in la dado kadib la degaa tabaaraka hadda stagekii ay joogto waxaa waaye stagekii inay mirihii ay intaasoo sano tabciisay inay gurato si loo gurto waxaa laga maarmaan ah in horta dadku ay isbartaan oo networking ka imaado meeshaas midda labaad in la dhiirigeliyo ugu yaraan la yiraahdo waa mahadsan tahay dhammaan shaqaalaha shirkadda gaar ahaan dadkii exceptionaliska ahaay ee sanadkii la soo dhaafay ee u dhabar adeegay shaqooyinkii ahaayeen intii caadiga in ka badan qabtay waxaan rabaa hal mar inaan ka codsado inaa u sacbisaan dhammaan guulaystayaasha dhammaantiin mar kale iyo mar kale waa isku soo laaban doonaa sanado dambe 2026 hadda ka hor anakoo 100 iyo dhowr ayaa isku imaana ayadoo la dhihi doono waa arki doonaa ayadoo dhowr boqol oo leeyahay inteena nool iyo inteena joogto nasiibku oo u saamaxo inay joogaan